daawadayaal kusoo dhawaada wararka aan idin hayna ee janaalkeena gorfaynta qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya faahfaahin culus oo ka soo baxaya howlgal ay sameeyeen ciidamada commandoska danab ee ka sameeyeen deegaanka Torotoro maxaa ka soo gordhay howlgalkaasi kulamo ka socda magaalada Baydhabo kaas oo u dhaxeeya Maha Salaad iyo wiliba Asadiyaano iyo wiliba dadka deegaanka kulamadaasi maxay ku saabsan yihiin maxaa looga hadlayaa ujeedka kulankaas loo qabtay muxuu ahaa waan kula wadaagi doonaa daawade ila joog inta aan ku jirno baahinteena ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa digniin culus ka soo saaray laba arrin maxaa ka soo kordhaya haddii ceelka shidaalka la qodo labadaas arrimood uu ka dhawaajiyay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya maxay tahay oo soo kordhay uu doonayay inuu ka hadlo ceelka la qodayo muxuu ka qabaa fikirkiisa iyo weliba siyaasadda imika taagan qodobadaas iyo qodobo kale ayaan daawada kugula wadaagi doonaa daawada dib muuqaalkan ku soo gaar subscribe share like comment daawashada aad daawatana ku maasan tahay Cumar Cabdirashiid oo digniin culus ka soo saaray laba arrin waxaa ka soo kordhay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa digniin culus ka soo saaray qorshaha dawladda ee ku aadan shidaal qodista iyo weliba xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dalka gaar ahaan dastuurkii weliba arrimaha doorashooyinka Cumar Cabdirashiid oo qoraal la soo saaray ayaa marka horeba ka digay in ka faa'iideysiga shidaalka iyo kheyraadka macdanta ay isku bedeli karto khilaaf siyaasadeed haddii aanan laga gaarin heshiis rasmi ah sidoo kale waxa uu muujiyay walaaca xooggan ee ku aadan dib u dhaca ku yimid heshiisyadii muhiimka ahaa ee qaranka taasina ay horseedi karaan halis ka timaada geedi socodka dawladnimo ra'iisul wasaarihii hore dalka ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in muhiim ay u tahay in xal waara laga gaaro siyaasadda isdiidan ee ka dhalatay wax ka beddelka dastuurka iyo weliba hanaanka loo wajahayo doorashooyinka maadaama ay saldhig u yihiin dawladnimada isagoo xusay in arrimaha shidaal qodista ay u baahan yihiin heshiis afgarada oo buuxo laga gaaro waxa uu sidoo kale fariin culus u diray madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud isagoo ka codsaday in uu ka shaqeeyo sidii loo dhameystiri lahaa khilaafka golaha maadaama uu sii dhamaanayo muddaxileedkiisa iyo weliba kan baarlamaanka oo weli xiisada ay ka taagan tahay hadalkan ayaa ku soo aaday iyadoo maalnimadii shalayta ahayd markabkii shidaal qodista ee Turkiga uu soo gaaray magaalada Muqdisho halkaasoo munaasabad weyn lagu qabtay iyadoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ee ugu sarreeyay dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo weliba qaybaha kale ee dawladda ceelkan shidaalka ayaa waxaa lagu magac daray curadka koowaad waxaana laga qodi doonaa xeebaha galguduud gaar ahaan inta u dhaxaysa deegaanada Mareeg iyo weliba Xaradheer halkaasoo ay masaafo ahaan aad uga fog tahay sida uu shaaciyay wasiirka batroolka Soomaaliya Daahir Shire Maxamed si kastaba ha ahaatee howlgalkan shidaal qodista Turkiga ay wadaan waxayna ka wadaan badda Soomaaliya ayaa waxaa qayb ka ah iskaashiga labada dawlad ay hore u galeen heshiisyo kaas oo diiradda lagu saarayo saamaynta horumarinta kheyraadka shidaalka iyo weliba gaaska dabiiciga ah mashruucan ayaa sidoo kale la filayaa in uu xoojiyo awoodda Soomaaliya ka faa'iideysiga kheyraadka dabiiciga isla markaana uu albaab cusub u furo dhaqaale ballaaran oo mustaqbalka fog wax ka bedela dhaqaalaha dalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa waxa uu ka digay in siyaasaddan isdiidan wada hadal lagu dhameeyo taasoo horay loogu socon karo ayuu yidhi balse waxa uu sheegay haddii aniga kaliya ayaa talinaya cid kale lama talinaysa hadday sheekadu tahay wax soconaya ma jiraan ayuu leeyahay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake aragtidayda waxay ila tahay in haddii aan la heshiinin laga dhexli doono dagaal lagu hoobto taasoo ummadda Soomaaliyeed aan xal u ahayn ayuu yidhi Xasan Sheekh Maxamuud waa inuu ka faa'iideystaa wax weyn ayuu qabtay waa inuu sii dhammaystiraa waxqabadkiisa uuna u caddeeyaa bulshada uuna iska daayaa xilli isku dhejinta madax adayga uuna tanaasul u sameeyaa shacabka Soomaaliyeed ayuu yidhi ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake xog cusub kulamo Baydhabo ugu socda Maha Salaad iyo weliba Asadiyaano taliyaha hay'adda ee sirdoonka nabad sugidda qaranka Soomaaliya Maha Salaad iyo weliba taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeye guuto Asad Cusmaan Diyaano ayaa maanta magaalada Baydhabo kula yeeshay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka deegaanka Baydhabo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kulankani ayaa waxaa diiradda lagu saaray xoojinta wada shaqaynta u dhaxaysa maamulka deegaanka iyo weliba saraakiisha hay'adaha amniga si loo adkeeyo sugidda amniga iyo weliba xasiloonida guud ee magaalada iyo weliba deegaanada ku xeeran ee Koonfur Galbeed mas'uuliyiintan ayaa la gartay muhiimadda ay leedahay in la adkeeyo xiriirka u dhaxeeya maamulka degmada iyo weliba saraakiisha amniga si loo hubiyo nabadgelyada weliba xasiloonida guud ee Baydhabo ilaa hadda waxaa jira ciidamo ka maqan deegaanka oo taabacsanaa madaxweynihii hore Koonfur Galbeed Lafta Garan kaasoo si awooda looga saaray magaalada Baydhabo xilkan looga wareegay
kadib awood military oo loo adeegsaday dhaqdhaqaaqyo ay wadaan Mahad Salaad iyo weliba Asad Diyaano kaasoo ay ku doonayaan inay bulshada reer Beledweyne ay ka dhaadhiciyaan ra'yigooda sida ay la tahay weliba sida ay jecel yihiin wayna arki doonaa wixii ka soo baxa wararkaasi. ciidamada sida gaarka u tababaran Kumaandooska Danab ayaa waxa ay howlgalo ka sameeyay deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellada Hoose. howlgalkan oo si taxadar loo qabanayay ayaa lagu beegsanayay baraha control ee sharci darrada ah ee Al-Shabaab ay ku hayaan deegaanada Torotoro. ciidamada Danab ayaa gacanta ku soo dhigay xubno ka tirsan Al-Shabaab kuwaasoo ku sugnaa baraha controlka sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay taliska. qoraalkan ayaa sidoo kale lagu xusay in howlgalkani uu ahaa mid sida gaarka ah loo soo abaabulay isla markaana lagu bartilmaameedsan goobaha ay kooxdu ku dhibaatayso shacabka. ujeedka howlgalkani ayaa lagu sheegay burburinta goobaha Al-Shabaab ee canshuuraha sharci darrada ay kaga qaadaan shacabka iliba gaadiidka mara wadooyinka gaar ahaan jidka weyn ee isku xira Shabeellada Hoose iyo weliba gobolka Bay. talaabadan ayaa si toos ah u xoojinaysa xorriyadda isku socodka shacabka, ganacsiga, bulshada qaybaheeda kala duwan weliba isku xirka labada gobol. ciidamada sida gaarka u tababaran Kumaandooska Danab gaar ahaan cutubka Special ee Danab ayaa mar kale adkeynaya go'aankoodii ku aadanaa sidii ay u wadi lahaayeen howlgallada qorsheysan ee lagu ciribtirayo Al-Shabaab si loo xaqiijiyo amni waara iyo weliba xasiloonin. daawadale inta ayaan kusoo gabagabeynaa wararkeena garoomada. daawad hadduu muuqaalkan kusoo gaaro subscribe, share, like, comment daawashada daawata ku maasan tahay.